munaasabadani oo loogu magacdaray habeenkii horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed ayaa sanadkiiba mar lagu qabtaa gobolka Minnesota iyadoo ujeedada munaasabadani ay tahay in lagu dhiirigeliyo dadka waxtarka u leh bulshada Soomaaliyeed waxaana munaasabadani ka soo qayb galay qaar kamid ah ciyaartoydii hore ee xulka qaranka Soomaaliya aqoon-yahano dhalinyaro iyo waxgaradka bulshada inta ay munaasabadani socotay ayaa waxa abaalmarino muhiim ah lagu doonsiiyay shakhsiyaad bulshada kaalin muhiim ah kaga jira waxaana kamid ah ardayda jaamacadaha fanaanka dalmaryare wariye Cabdiraxmaan Muqtaar iyo ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka Soomaaliyeed Aweys Muuse Arbow oo ku magac dheer Aweys Fundi kaasi oo la guddoonsiiyay abaalmarinta ugu muhiimsan ee sanadkan la bixiyay ugu horeyntii waxaa martida soo dhaweeyay Aadam Ugaas isagoo sheegay in gobolka Minnesota ay ku nool yihiin Soomaali wax qabadkoodu uu aad u sareeyo isla markaana baal dahaba kaga jira bulshooyinka ay la nool yihiin wali waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii caawiya horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaaliyeed ay soo qaban qaabisay organizationka Unity Gala barnaamijkan waxaa qayb ka ah ama gacan ka geysta Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka oo isugu jira ganacsato hogaamiyaal community waalidiin culamaa udiin dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxa ay ku caawiyaan dhaqaalahaas oo aan filayo inaad aragteen wixii ka soo baxay community kasta miraha uu abuurto ayaa u soo baxa walaalkeen aadan fikirka ayuu keenay laakiin taabagelinta barnaamijka inaad dhistaan niyadiisa ama moralkiisa waa idinka daraadiin ayuu barnaamijkan ku hirgalay aad iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin waa tahay waxaana barnaamijkan caawa inoo dheer in la guddoonsiin doono shahaado sharafeed qaar ka mid ah bulshada caawa halkan ku sugan anigu weli ma hayo magacyadooda laakiin waa tahay markana waxaan u yeerayaa Aadam Ugaas wiilkii dhalinyarada ah hawshan isku soo dubariday isla markaana guddoonsiin doono shahaado saddex ka mid ah caawa dadkii loogu talagalay marti sharafta la guddoonsiinayo shahaado sharafta fadlan Aadan Ugaas ila soo dhaweeya tihiin dhammaantiin imaanshaha ay imaadeen ayaa waxay ugu filan tahay ardayda dadka waaweyn kuwa dhexda ku jira imaanshihiina ayaa waxay ka weyn tahay wax kastoo financial ah marka timekiina aad noo hurteen intaan oo Soomaali ah oo professional ah inay u soo baxdo ubadkooda aad iyo aad ayaan iga mahadin celinayaa in lagu farxo waay Soomaalinimada clubkan anaga aan coach garayno aniga iyo coach Fartuun waa club ay design gareeyeen ninka professional teamka magaalada coachka waxa Baz Lagos Minnesota Tender Plus baa la yiraahdaa laakiin annaga haddaan nahay Soomaali waxaan leenahay sharaf iyo hami iyo qab nagu jira waxaan leenahay macallimiin dhaqtaro policeman waxaan leenahay every other aspect of social life ka magaalada ka jirta Soomaali waa ku jirnaa immigrant kii naga soo horeeyay 40 years oo maang ahna waxay ahayd Cabdi Warsame markuu oo qaadanay City Councilka ayagana City Councilkooda ugu horeeyay ayagoo 40 years naga soo horjeeday so I'm proud of you guys honestly anna waan ku faanaa Soomaalinimada anna waan idin ku faanaa maanta haddaan ana Cabdiraxmaan Muqtaar oo aabba ah xaaskiisana isagana la joogto aan isku dayin inaan amaano reer mudug waxaan dhanan as amaansho iyo nin qof amaane iyo Mareykan waxa looga imaaday resume in qofka la sheego wuxuu yahay Cabdiraxmaan ilaa iyo Roosevelt High School ilaa iyo hadeertan wiil dhalinyaro ah ayuu wuxuu u buuxinayay formka wiil dhalinyaro ayuu college ka geenayay wiil dhalinyaro ayuu ka caawinayay step up programs on a youth keena at the same time waa quiet waa aamusan marka qaarkood waxaan israadaa ma jujuqaysaa bari kor inuu u qayliyo maba hadlaayaba marka Cabdiraxmaan ininkoo Soomaali hortiina wada joogta sanadkan waxaan u dooranay community changer award oo ana isagana surprise ugu dhignay Cabdiraxmaan walaalkay stage-ka ila soo istaag Cabdicaziis Biixi walaalkay adigana stage-ka ila soo istaag oo aad guddoonsinaysid Cabdiraxmaan award-ka oo ah community changer Cabdiraxmaan inta dhalinyaro oo Minneapolis ku nool qof uusan aqoonin ma jirto ama Roosevelt High School ha ahaado Edison ha ahaado Washburn ha ahaado waxaan aan ka hadlaynana waa 17 years ka hor baan ka hadlaynaa ilaa ay hadeertaan Cabdicaziis award-ka halkan uu yaala fadlan soo qabo sheegaan ayana ugu talagalnay Somali Tiger Cabdicaziis waa naga guddoonaysaa
wixii annaga aan qool aan geyno we make sure that aan ka dhabayno cabdiraxmaan isguddoonsiiya isagana awardka ku guddoonsiiya adigana lacagta guddoonsiiya qof kale ayaan rabaa aan kusoo daro stageka ah waa nin dhalinyaro ah waa nin every time from St. Cloud ilaa iyo Minneapolis aana iskala weynaysiin dhalinyarada sportska oo always dhalinyarada sports ku xiga this year dadka markii wax loo dooray waxaan rabnaa qofkan ma ku jira society-ga dadka ma ku dhex jira a lot of people waxay yiraahdaan aadan ogaaso seebaad u doorataan seebaa u haysaan markasta waxaan idhaahdaa guys annaga sina lagu maro way adag tahay qofkii annaga aan doorano it have to be inuu track record uu leeyahay mana doorano qofkiina yiraahda aniga award hal isiyo lama dooran karabe subhanallah marka fadlan artist of the year igu soo dhaweeya oo aan rabno inaan siino Cabdiraxmaan Barkad Dalmaryare oo ah nin dhalinyarada aad u jecel dhalinyarada aad u caawiya dhalinyarada St. Cloud dhalinyarada sportska Dalmaryare waxaan u dooranay nin si community-ga isdhexgalkeeda bulshada sida dhalinyarada nabadaba isku dhex wada gala Dalmaryare ku soo dhawow Cabdiraxmaan Dalmaryare awardkiisa fadlan Cabdiraxmaan si hi Dalmar welcome ما سنتعد عن دلمر أول كيس على الغرباء متك قدير واي ودير يا مكت دلمر كسر دو فضلا وما سنتعد دلمر شغلة أوهي سيدان يرد سان كلاود يدان يرد مينيابوليس با متان فيستك وعيارنا نادي dadkeenu ma dhoohan yahay miyaan dhaayaheenu arag dhagarta laynagu waadiyo cadowga dhexdeenan degay siday u dhammaynayaan dhallaankii iyo hooyadood dhakhaatiir iyo waxgarad dhigeena u daadiyan waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqloo kacay marqura dhiidhiyo kacay wixii dhiglow kacay damiirku intaanu dhiman dhulkeenna difaacane dhallinyaroy kacay halkii aan ku dhalanayo dhulkii hooye ee wacdaa dhararna ha booqano habeen ha ku dhixin miya dhibaato intaan marniyo wixii dhalka faaris xigay taariikhda inoogu dhigaa xusuustuna yaanay dhunin war waxaan lama dhowran kare dhawaaqa maqloo kacay marqura dhiidhiyo kacay wixii dhiglow kacay damiirku intaanu dhiman dhulkeenna difaacane dhallinyaroy kacay kaliya waxaan rabaa inaan Soomaali weyn meel walba adduunka ka joogaan u sheego haddaan nahay community-ka Soomaalida ee Minnesota inaan nahay dad isku duuban akhlaaq iyo adab iyo ixtiraam iyo sharaf leh wax bartay horena u socdaa deegaanka Minnesota dayax baanu nahay daawada quruxdooda dadku say wadaagin dadaalkiiya sharafta iyo daacadnimo kartile waliba isku duubnidiyo diinta iyo sharciga wanaaga lagu dahabay hablaheena dahabiga oo wiilal diirdiiran iyo geesiyaal dul adag ducaysan hooyo hooyin iyo garidamal qabow deegaanka Minnesota dayax baanu nahay Soomaali weyn kulliba Soomaali weyn karaamay hagoogayin kartida way wada dhasheen korba loo daawada kashiya laabtayda iyo qalbigay keed ku leeyihiin
community waxaynu nahay waqood kaalintooda gabin kitaabka quraanka iyo cilmiga keed buu u yahay علوما نوكلا دقدقو كرين كان نقومن ليكر لعق بوليسكا إيا شرعيقا كوكلا هقاي كورتيقا اللو يرتاقن إيا وحلنا ويل الكل الكفاية من الصوت إيا كبتانا اللقا هلا كمان جامعات بكتيو سياسيين كالين قبن دقاتير وذاكر مرايكا ساي عذر كاد قبتيو كالكالية عافمات كالمية الشعب كإذ الكفاية من الصوت إيا كبتانا اللقا هلا ومدسنتي award kan waxaa la yiraahdaa lifetime achievement award waxaan ugu talagalnaa hatta waxaan waa barasho 10 baan ku jirnaa macallimiin badanna waa fadhidaa caruurta yararkan coach gareeya kuwii waaweynka ayaan jaamacadda ka soo laabtay ayaan waxaan siinay leadership iyo ku dayasho at the same time aniga iyo ayaga iyo kuwii naga yaryaraaba waa inaan leenahay waxaan ku tiigsan karno oo dad naga waaweyn ah marka lifetime achievement award waxaan raadinaa qof aan ka qori karno 3 page 4 page warqada ayaa yaala brochure qof kasta oo brochure ka qaba gacanta bal ku taabo fadlan brochure ka kor u qaad hadda haysatid brochure kaas waxa ku qoran nin oday ah oo aan u garanay this year lifetime achievement award waxa noo bixinaya oo qisadiisana nooga sheekeynaya asagana waa lifetime achievement recipient kale oo soo qaaday 2 sano ka hor Cabduqaadir Sheekha fadlan ku soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay caaw inaan ka soo qayb galo munaasabadan qiibaha leh oo loogu magac daray habeenkii horumarinta dhalinyarada iyo haldoorka Soomaalida marka qaybta iga aadan asi sport ahaan waxa xusid mudan in halkan ka sheego marka hore intaanan garin taariikhda hadiyaga weyn ee Soomaaliyeed ee caaw martida noogu ah halkan caaw waxaa nala joogta gabar kamid ah gabdhaha sportigeed ee hormuudka ah oo iyadu ku magacaaban xil aad iyo aad runtii u weyn oo ah gudoomiye ku-xigeenka Olombikada Soomaaliyeed maama Faadumo Cali Nuur Faadumo dad ta istaagi karto aad baan u jeclaan marka Faadumo ayaa inala joogto waa taas istaagan waxa kale oo inala jooga asna macallin kamid ah macallimiinta kubadda cagta Soomaaliyeed aan iraahdo waliba ciyaarihii ugu dambeeyay gobolada ee hadda lagu qabtay gobolka magaalada Muqdisho macallinkii qaaday koobkii gobolada ee gobolka Kismaayo macallin Cabduqaadir Qarindi adaa isaga kartay si loo waxa iyaga nala jooga xubno kamid ah guddiga Olympiga Soomaaliyeed macallin Cabdi Yuusuf nala jooga waxa jooga macallin Ma Cali ayaa jooga sidoo kale waxa jooga isna sheeg nin isagoo kamid ah tababarayaashii Soomaaliyeed ee kubadda cagta walibana gaaray heer qaran ee baajka FIFA garsoor caalami ah macallin qolof ayaa isna halkan fadhiya sidoo kalena waxa aan runtii carabka lagu dhufan marna waa isna marti ku halkan comedianka ninka runtii dadka ka qosrisiya mataan ayaa isna jooga asna idin dambeeyo kale way sugaa iyo qaar kamid ah gabdhihii xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga maama Gani iyo Naciima iyagana waa joogaan halkan runtii inaan tilmaamo waa boon intaas dabadeed markaan u soo noqdo qofka halkan aan u joogno caawa oo aan xuseenno oo ah qofka lagu magacaabo Aweys Muuse Arbow ama ku magac dheer Aweys Fundi ayaan rabaa inaan wax yar aan ka taabto taariikhdiisii sporti aad maasantiin aniga runtii oo soo koobaya runtii waa haliyay runtii aad iyo aad u taariikh dheer marka laga hadlayo sportiga Soomaaliyeed gaar ahaan kubadda cagta laakiin waa soo koobaya insha Allah hadii alla yiraahdo Aweys Muuse Arbow Aweys Fundi ayuu ku magac dheeryahay waxa uu ku dhashay degmada Afgooye sanadku markaa 1956 dabeedna waxa uu soo wareegay gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Boondheere oo ahayd meeshii uu ku soo barbaaray
sida naaneysiisa ka muuqatana Aweys Fundi waxa uu ahaa farsamo yaqaan sare waa ninkan arkaysaan waxa uu ahaa farsamo yaqaan sare oo aad ugu shaqeystay xirfadiisa waa aragnimo fogna u leh dhanka farsamada oo ilaa haatan uu ku shaqeysto xirfadiisa waxaana uu ka shaqeyn jiray wasaaradii howlaha guriyeed iyo guriyeenta wasaaradii howlaha guud iyo guriyeenta oo loo yaqaan JAY Aweys Fundi yaraantiisa waxa uu ka mid ahaa caruurtii mini basketka ku barbaaray ama ku ciyaari jirtay garoonkii la oran jiray Lujin oo haatan loo bixiyay garoonka Wish Aadan Xaji Yabro loo bixiyay waxaana macallin u ahaa markiisii hore uu yaraa tababar la oran jiray Saacid Cumar Geedi dabeedna kubadda cagta uu aad u jeclaa ayuu u wareegay isaga oo markaasi ka mid ahaa ciyaal bacaadkii ku ciyaari jiray degmada Boondheera waxaana ku dhiirigeliyay ciyaaraha nin markaas isagu taageer u ahaa Jenyo oo la oran jiray Jeelani Cadow Xasan oo isagu haatan ku nool degmada Madiina dabeedna Aweys Fundi waxa uu u soo wareegay dhankan Jenyo oo uu macallin u ahaa Allah u naxariistay macallinkii la oran jiray Axmed Xasan Axmed Negro 1978 ayaa markii uu horeysay uu saftay ciyaarihii juniorka isagoo markaas ka tirsanaa naadigii Jenyo dabeedna markii ciyaarahaasi dhamaadeen waxa isagoo ku ciyaaraya xeebta Liido halkaasi ka soo qabtay macallinkii qaranka asna haleegii sportiga oo la oran jiray macallin Ibrahim Suudani waa uu naga maqan yahay caawa runtii safar ayuu aaday Masar halkaan uu ku nool yahay gobolka Minnesota dabeedna waxa uu yimid oo uu ka mid noqday ciyaartoydii kubadda cagta ee naadigii la oran jiray Horseed 1977 Aweys Muuse Arbow waxa uu ku beeray xulkii qaranka Soomaaliyeed ee kubadda cagta muddadii uu ka tirsanaa waxa uu ka qayb galay ciyaaro fara badan oo caalami ah oo aan ka xusi karno kuwii uu ku tagay dalalka Uganda iyo Malawi sidoo kalena waxa uu kooxdiisii Horseed uu kala qayb galay ciyaaro caalami ah oo lagu qabtay wadamadii USSR waa Ruushka Uganda Malawi iyo Masar mar uu ka hadlayay taariikhiisa ciyaareed muddadii uu ku soo dhex jiray 10 sanadood ciyaaraha waxa uu aad u xusay in 1983 ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee maskaxdiisa aan ku geyn inay kamid ahayd ciyaar uu la ciyaaray kooxdii la oran jiray Al-Muqaawiliin Al-Arab kooxdaasi oo ahayd koox aad u adag oo ciyaarahaasi wareegoodii hore ee lagu qabtay wadanka Masar kooxda Horseed looga badiyay 7-0 aseeshe waxa runtii farxad ahayd iyadana markii wareegii labaad lagu qabtay magaalada Muqdisho in kooxda Horseed ay ku adkaadeen 2-0 arintaasi kolley Aweys isaga ayaa ka warami doona inkastoo guuldarada loo saariyay inuu sabab u ahaa macallinkii kooxda Horseed watay oo ahaa macallin Masri ah oo markaasi farsamadii kooxda ay ku ciyaar leed oo wax weyn ka bedelay sidaas awgeed ay guuldarada ugu dhacday Aweys saas oo meel sax Aweys waxa kale uu carab ku dhuftay in 78 kooxdiisii Horseed ay ka guuleysatay kooxdii Fiyaad oo iyadu markaasi wareegga hore 3-1 looga adkaaday laakiin markii dambana iyagu ay 5-0 ku adkaadeen sidoo kale kooxda Wuxool ayuu isaguna sheegay in 1980 in ay dhanka barbaraha ay sinaayeen hase yeeshee markii la isugu soo noqday waqtigii dambe oo ciyaartu ay ka dhineed daqiiqado aad u yar in ciyaartooydii Cabduladiif oo markaa daqiiqadihii ugu dambeeyay uu goolkii guusha uu halkaasi ugu dhariyay halkaasina ay ku qaadeen koobkii horyaalka Aweys ayaa waxa uu aad u tilmaamay inuu jeclaa ciyaaryahanno fara badan oo iyagu aad iyo aad ugu wanaagsanaa kubadda cagta qaarkood oo ay nool yihiin qaarkoodna ay geeriyoodeen Allah u naxariiste kuwaas uu ka xusay Shaash Cabdikuus Goolhaye Jeelani Khaliif Cabdinaasir Killer Maxamed Ismaaciil iyo Xasan Cafiif Goolhaye Biole sidoo kale waxa uu xusay ciyaaryahankii la oran jiray Shiqaalow Cabdullaahi Cabdi Allah u naxariisto Bashiir Jeenyo bin Shaakir Qaloocow Jimcaale Xayow iyo Goolhaye Goorje dadkan ayaga ayaa waxay ka mid ahaayeen muddo aad iyo aad u fog dadkii runtii calanka u waday Soomaaliya oo aad ogtihiin in ciyaarahoodii kubadda cagta iyo kubadda koleygaba ay heer aad iyo aad u wanaagsan ay uga jireen marka loo fiiriyo ciyaarihii wadamada Afrika iyo kuwa Carabta 1987 ayuu ciyaaryahan Aweys Muuse Arbow ka fariistay ciyaaraha duruufo gaar ahaaneed oo markaas isaga la soo gudboonaaday isaga oo markaas u wareegay dhanka dhismaha ama constructionka oo ahayd farsamo gaar ah oo Ilaahay uu hibo gaar ah u siiyay Aweys haatan waxa uu ku nool yahay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Atlanta Georgia waxaan markaa caawa nasiib u yeelanay inaad ila soo dhaweysaan
inuu caawa halkan nala joogo gobolkan Minnesota martina uu ku yahay barnaamijkan xiisaha badan marka awees maadaama uu nala joogo waxaan jeclahay in halkan ku soo dhaweeyo idinkana aad ila soo dhaweysaan assalaamu calaykum runtii waa layga fiican yahay inaan dad soo hor istaago inkastoo aan sideetameeye dad aan dhexdooda kubad ku dheeli jirin laakiin wax sheegista xoogaa febraan ka qabaa laakiin balaayi hadday ku qabato tartiib tartiibaa looga baxsadaa horta ma soo koobi karo dareenkayga caawa intaanoo ummada ah inaan hortooda soo istaago aadaan idinku mahad celinayaa dhammaan waxaan salaamayaa gaar ahaan dadkii soo abaabulay xafladan oo quruxda badan marka run ahaantii waxaa ka sheekeeyey taariikhdeyda shiikha ka sheekeeyey intaan cayaaraha soo gelin ka horba horta waxaan ahaa nin soo bartay farsamada juniorska markaa imidba waxaa loogu wici jiray awees fundi waa 1976 dad badan ma dhalinina umalaynaqay ilaa ugu dambeyntii haddana waxa waaye alxamdulilah waxaan ku shaqeeyaa farsamadeedii aan ku shaqaystaa waa ilaaha mahadiisa waaye waxaan mar dambe haddana aan u jeedinayaa mataqaanaa ammaan iyo raggii reer Minnesota oo ka soo qayb galay xafladan gaar ahaan walaalkeena ama wiilkayga baan iraahdo jay blue xafladan waxaa kaloo salaan ama ammaan u diraya community-gi reer Minnesota oo ayagana xafladan soo abaabulay waa mahadsantiin idin leeyahay waxaan rabaa inaan anigana ammaan kale aan u diro macalinkaygii Ibrahim Maxamed Xirsi oo caawa safar ku maqan oo Qaahira ku maqan oo qayb weyn iga siiyey qaybta aniga aan lahaa waa la socotaan Soomaaliya qofkii xataa waxaad qayb u lahayd ku siiya asxanta la yiraahdo waa dareemi kartiin dhibaatada waddankeena haysata dadku waxay yiraahdaan qabiil waaye kan waaye inta waaye qabiil wax la yiraahdo ma jiro personal interest jirta laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay dadku qulubtooda isku soo rogo qulubtooda isku toosiyo waddankeena waxaan ugu duceynaa in ilaahay noo dejiyo maamul fiican in ilaahay noo dhaliyo marka waxa kale salaamaya saaxiibadayda ayagana inta fadhiya mataan oo kale oo saaxiibkayga ah oon iskala nimid Atlanta iskala nimid anaa hogaaminaya isaga oo anuu ila socdaa hadda waxaan salaamayaa macallin qolof aan salaama asaguna inta fadhiya macallin qariidiyo asagana sheekha oo ka sheekeeyey sheekha anuu iga boobay waxaan iri anaa bal sheegaaye adi ha sheegin laakiin asaa iga hor sheegay macallin qariidi oo muddo badan kooxdiisa kismaayo aysan koob qaadin xamar markuu tegayna koobkii asaa u qaaday aad ugu mahadsan yahay marka kulligiin waa mahadsantihiin waan idin jeclahay Soomaalina waxaan u rajaynayaa isjecel iyo Soomaalinimo iyo midnimo intaas ilaaha noo kaso assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inuu stage yimaado macallin qariidi si uu u guddoonsiyo hadiyadan awees muuse arbo awees fundi